السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي كسر وحكيم أوفيشيال ومركل عاوح يا إلى جو وصاحبك قال محمد إدريس سيدا جدا. هاي محمد كسر جنالك حكيم أوفيشيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتو أيدين سلامي ولالكي مانتا يوعزو مي كانال كيسا عبد الحكيم وأكودو مي سلانتا يا عبد الحكيم. عاو محايدين بدنا طلع. horta mar koowaad iyo mar labaad ciid wanaagsan asxaabta ku xiran channelka Hakim Official. fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe, like, comment, share walba noo badi si uu gaarto asxaab fara badan aan u helno caawinaad. adaan kor noo qaadi kara, adaan hoos noo dhigi kara. fadlan ugu caawi share ina si dhahdo si gaarsiiso asxaabtaada dunida ku sii kala maqan. waxa ka hadlaynaa gabagabada iyo dhamaadka oo sii wado corona iyo adduunka isbedelka ku imaan doono. hay maxamed see u aragtaa? wallaahi cabdixakiino horta inta aan soo marnay saa umaleynaa adduunka inta hadda anaga cimri ajino waxaan weligeyn aan soo aragnay maahan. sababtoo ramadaan noo bilowday oo noo dhammaaday bilaa taraawiix taajid la dukanin qof walba gurigiisa oo ku dugto. hortan waxaan umaleynaa 2020 mid la iloobi doono in ay noqon doonto tan umaleynaya. sababtoo tan taariikh aad weyn noo reebtay. teeda kale waa aragtay hal wadan waa la maday, laba wadan waa la maday, adduun weynaha dhan ay noqotay. xataa kacbadii xataa way naga xirmatay, salaad iid meel lagu dugtay malaho, taajidka sidoo kale. صح. laakiin alxamdulilah ilaahay wuxuu keenay kulleeto waxa waaye ilaahay ku xamdin waaye. sababtoo wax walba xag ilaahay xag alla ka imaado madiidan samto imtixaan waaye. waa sida ogtiin adduunka wuu isxirxiray caqabado fara badan, dhaqaalihii hoos u dhaco, heer waxaa la gaaray xataa dadka masaakiinta ama ku noolaa dadka dhexdooda ay waayaan waxay ka cunaan because dhaqaalihii hoos jiro. qof walba wuxuu hayay isku dhejinaya. marna fadlan waxaad indhihi lahay walaalihiin caawiya, ninka saaxiibkaa, asxaabtaada, dariskaada ka warqab because waxaa laga yaabaa inta adi haysato inuusa haysan. marka caawi walaalkaada, inta qof ku filan labana way ku filan tahay. saxa waaye wallaahi. horta taas hadda ay shay maaragtay inta badan Soomaali hadana dhaqankaas waa lagu kasaa maadaama. laakiin hadda markii kay la imaaday Soomaalida sidoo hormaan xawaa dhaqankii wax yar uu iska yar bedelmay. laakiin waxay idin dhihi lahaa dhulkaaga haddaa joogtid, dhulduuda haddaa joogtid, inaa mid awood noqotid islaam waa islaam. meesha iskii hor imaadin amsa isku taqaan amsa dirsutiin inay isku caawidaan. sababtoo adduunkaad waa arkaydaan iska dhaaf ayadoo bil Ramadaan lagu jiro ka hor waqtiga adduunka soo xiray. haddeertaan waxa waa Ramadaan alxamdulilah ilaahay maaragtay si nabadoo nagu dhameeyay. insha Allah waxaan sii jeclaan lahaa hadda wixii kasii dambeeyay dadka inay isii garabsadaan, qof walba qof kale siduu awruun yahay inuu usii kaalmeeyo. taas ininka dheh ajra ka leedaan. Soomaaliya hadda wadanka aad joogno Soomaaliya Kenya joogna ku Soomaali joog iyo ku Kenya joog daafa dhan adduunka meel walba ay ka joogtaan. waxa fiican inay is caawisaan sida maqlaysin saaxiibka uu ka dhawaajiyay. haddana maxamed mid kala jirto hadda waxa u malaysaa adduunka xoobaa isbedel inuu imaanayo oo wadamada qaar hadda weli ay bilaabeen shaqooyinkooda dib in loogu noqdo la furfuray. marka see u aragtaa Kenya ahaan? wallahi Kenya ahaan waxaan arkaa horta inuu marka hore anaga waa iska shaqaysan jirnay. alxamdulilah haddeertaan waxaan arkaa dhaqdhaqaaq yaris oo xagga shaqada hadda xoogaa waa arkayaa. alxamdulilah ilaahay waxaan ka rajeynayaa shaqada ilaahay inuu noo furo oo muslimka oo dhan ilaahay u furo. meel walba wax jiraan maaragtay ilaahay culayska inuu ka qaado. markaas waxa waaye qof walba asi magaaladiisa iyo mashquulkiisa noqonaysaa. taas waxa waaye weli saa ognahay lockdown ayaa ka sii jira maxamed. sax. oo because weli way sii xiranta habeen iyo maalin. siiba isliiha la dhaho lockdown ka jirta habeen iyo maalin. islii dhexdeeda waa socon kartaa laakiin islii hadda isku daydo banaanka inaad u baxdo waa ogtaa waxaa jagboontii marayna maalin hore. wallahi been mooha. wallahi been mooha. taas ayadana mid way ku dheh. taasna waxay u yeelayaan horta ani ahaanteeda qof walba macnaha waa ra'yul ya mugta arintaasna qofna kala ma hortagin. laakiin aan ahaanteeda markaa fiiriyo kale waxaan maqlayay daraad inay run tahay inay been tahay mashiikil. laakiin se mar Aljazeera ayuu laga soo qaadanaya Kenya India waxaa la dhahay waxay u qeybiyeen isha kuwa maas garaasanka lagu xirto dadka masaakiinta maaragtay meelaha sida madaara ruum dad badan oo kale lacag caawinaad in la keeno oo dadkii maaragtay in la sii raashin ahaan loogu geeyo. saas aan waxaan arkaa isliin waa marka si loo fiiriyo waa meel business oo Soomaali qof ka maskiinka xataa isli joogo shaqaysta qof xamaalada hawaaye. markaan fiiriyay Hindina waxa waaye dhawrtooda aad bay u badan tahay. ani ahaanteedu waxay tahay isli ahaan hadda bandu wax loo saaray xataa Mombasa waxa la sheegay meesha dala saaray oo kale ka fudud la saaray inta meesha ay tahay Soomaaliya meelahay dagayni. taas oo kale waxay ila tahay aniga macna Hindiga yani in ay rabaan toonka meelaha ay dagayni business inay ka socon sanadkan sidii rabeen way heleen. laakiin se ilaahay qof walba wuxuu qorayay ma gafin isli naftirkeeda business wuxuu qornaa dadku waa laga gatay. alxamdulilah dadku qanacsan brother. saasay tahay ma isdhihi kartaa cadaadis la saarayo waa Soomaaliya way maane iyo looq loogu soo gambada. waxay u maanay ku sheegay taas qasab waa waxay ku maanaya waxay
islii hadda marka la dhaho kale islii waa meel suuq waa soomo meel dadka ay ku kasayaan business waa meelo badan laga yimaada xataa gobolooyinka waa laga yimaadaa dhar oo raqiis waa laga helaa dhar normal waa laga helaa marka la dhaho kale islii kaliya alxada fiiri kikomba iyo islii ma isku jiraan wax isku jiraan malo okay islii kaleeda marka xirsidoo kale islii dadku nool waa bini'aadan waay dad hadday banaanka aga imaanin oo wax laga gadanin dadkaas maciisho dad sidee noqon kartaa wallaahi aad bay u adkaanaysaa marka ana waxaan jeclaan lahaa dadka in hal mid in laga wada dhigo sababtoo ah cudur lama dhihi karo hal qabiilaa wado lama dhihi karo waxaan hadduu cudur hadduu mar imaado saameyn haddii mar imaado ummadoo dhan kay u qoreen maana inta kale way wada marayaan ana waxaan dhihi lahaa dadka dhan iimaan in ay wada qabaan oona maaragtay dadka masaakiinta cadaadiska la saarayo oo meelaha laga xiraya barbaraleeda in wadada loo furo oo masaakiinta iska shaqaystaan maxamed mid kale adduunku waa la furfuraa kenya ma u malaynaysaa maadaama hadda kaafiyo bisha 6deeda ku eg tahay inay kusii daraan ay sii wadaan cadaadista ay ku hayaan dadka wallahi horta anaga haddaa afrika ana maaragtay afrika sideedaba waxay ku xiran tahay wadamada yurub ku xiran tahay sababtoo waxay fiirinayaan wadamada yurub wiil lama furan iyaga maxay fureen waxaa ogsanaya hadda taan haddii 8 wadan ama 9 wadan ama 10 wadan oo kale haddii la furo ayag cadaadis way qaadeen saan ayag xataa dan uguma jirto waxaysan dan ugu jirin canshuur hadda magaalada meel laga qaadayo ma laho canshuur aan qaada loo hadii la kale ma jirto hadduu danka xataa heer qallaas wuxuu ku sii dhow yahay maaragtay haddii saan lagu sii socdo qof walba waxay noqonaysaa markaas in oo iska danayso wadada qof walba soo gudbi karo shalay waa maqlaysa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta inuu ka dhawaajinayo yani inuu dhahay yani kuma sii hayn doono dadka guryaha oo waxa ogolaanaynaa inay shaqaystaan taasi miyuu ka dhameyn karaa mise wallahi horta ma sha Allah madaxweynaha waxaan dhihi lahaa taas wuu ka dhameyn karaa sababtoo ah Uhuru waa madaxweyne haddirtaan anaga waa soo maleynaya yani waa Kibaki kuwad markii la dooranaya wadankaas oo galay Uhuru hadda saa arkaya wadanku wax badan uu ka bedelay waay Kibaki madaxweyne oo ka ahaa dalka Kenya iyo haddirtaan sidoo dhisan yahay laba kala tahay Uhuru waxyaalo badan uu wadanka bedelay sida horumarka wadooyinka kale askarta dharka ay wataan xataa markii Kibaki u jiray askarta dharka ma wadanin gawaarida sidoo kale laakiin waxaan dhihi lahaa madaxweynahina in wadankii maaragtay oo noo fursaxo anagana iska xamaano dad xamaalta iska nahay oo barbaraas oo ka shaqaystaanahay marka waxaan dhihi lahaa madaxweyne wadada noo fur aan iska shaqaysano aan iska xamaalano codsigaan waxaan jeclaan lahaa haddii xataa laga gudbinaa maaragtay qof walba Soomaaliya duu shirgareynayo oo barbareel ama qof walba business oo ka shaqaysta haddii qof business hadduu yahay in uu noo sii shirgareeya akhyaarey sababtoo ah guri joog waa ku daalna waa caajisnay ewl 56 kiilo ee maanta miisaan soo fuul 86 kiilo noqday bala inta sidoo cudurkan sidaa wada ognahay wuxuu aanfiyay adduunka oo dhan midda jirtaa waxay dhanka Soomaaliya waa ogtahay hadduu waxay ku dhawaaqday yani cudurka inuu yaraanayo dhanka Soomaaliya Kenya waxa u malaysa cudurka maalinba maalin ka dambeysay COVID-19 ama coronavirus sida u taqaaniin in la leeyahay dad cusub baa la helay maalin ilaahay keeno marka dowladda Kenya saas ma dhaqaale raadisay bay ka tahay mise waa wax dhab ah because ma aragnay ilaa hadda wax TV la keeno ama isbitaal ku jiro oo dhahayna maanta intaas waxaa la dhihi jiray isliya dad badan la helay saalaatan qof la helay intaana la helay ilaa haddana qof la sheegaya ma arkin maya horta taas maaragtay ilama aho dowladda Kenya dadaal waxay ku leeyahay ku sheegaa horta ma ogtahay inuu bulshada dadka inta badan waxay u badan yihiin kuwada badan haddii la dhaho kale cudurka maanta wuu yaraaday haddii la dhaho dadku waxay bilaabayaan bilaa maask inay isticmaalaan bilaabayaan horta maaskan wax anagana anfacayo oo dalkan anfacayo waa sababtoo ah wax lagu kala badbaadayo waa sababtoo haddii la dhaho kale hadda bahalkan lama xirnay haddii la dhaho waxay noqonaysaa qof walba furi haddii oo ka dhigto meeshii in lagu wada baabay noqonaya marka Soomaali anaga haddaan xoogaa waa ogtaa wax yar waa madax adagnahay waxaa fiican sharci in uu gaasano aad u fiican tahay sababtoo wax man haddii dowladda ay ka soo go'do waxaa fiirsaa baarlamaanka markii la joogo karo waa hadlaa inuu kala fiiriyo qofaa maask wadanin ma jiro qofba ku hadlaa bisa waxaa macquul inuu maaska hoos kaga dhigo oo intuu hadda uu yahay markaa bashka tagana maaskiisa ku laaban haddana taas wax keenayaan waxa waaye qof maaragtay caafimaad dadka lagu fikiraya wax caafimaadka ku jirna sameeyay dantaada waa barada dhanka Soomaalida marka fiirisa xaafadda islii dhaqamada qaab miyay raacin amarada dowladda qaar waxa arkaysaa markay wada socdaan war hayay marka dhaadada xiranayaan inta kale saan iska soconaa marka wax keenay cadaadiska kale taas oo kale keenay meel walba joogta xataa in case haday noqoto kaliya in asoo haday noqoto wadada kaliya atay in ay ku xirnaato sababtoo ah cudurkan waxa lagu dhahaa meel derbiya lagu kala qaadaa bira qabanaysa oo kala lagu kala qaada okay qof bil aadan marka barada marka taabasho waa waxa lagu kala qaaday alaafu marka maxay noqonaysaa marka dadka maxay noqonay baalka la antiisa rafaad inuu yahay hadda waa adduunka waa aragtay gloves la xiran yahay gacmi dadku xiran laakiin Kenya afka bas baa la xirtay marka ma dhihi karna gacmihii baa ku soo qaaday meel ba soo taabat maanta dad baa salaameysay ma dhihi karna marka gacmihiina wili
waa kusoo qaadi kartaa Waa bas maadaama taabasho lagu kala qaadayo qaawos waa lagu kala qaada gacmaha murab iska dhaqaa fiican hadda waa aragtay meel walba istaagtidoo kale hadda alaaba soo qaadi waxay qoran bas meel waxay marka soo socdo suuqa soo badala fur waa aragtay meesha waxa taalo baashi gacmaha lagu dhaqanay biyo yaalaha yar meel walba oo business hadda alaabtaas aan leeyahay qofkii caafimaad daneynaya mise qofkii yaanin og macna waxaan wax jiro inuu yihiin cudurjin uu yahay caafimaadka murab waa adigu anfacaa waay hadda jaanis ku yeeshid waxa fiican inaad dhaqatid aad ugu fiican tahay wallow ilaahay iska aamin qofkii ilaahay aamin in wax ku dhacaan aan ma aaminsan laakiin ilaahay aaminkiisu waa la aaminsan yihiin laakiin haddana dadaal baa la isfaray dadaalkaadi haddaa ka yareyso fadlan markaa suuqa soo marta ama wax soo qabsato gurigaada imaato iska dhaq gacmaha santeesaadii ku taalo marso gloveska inay xiratan isbar marka aad fiirisid gloves la-aan baa la iska socdaa 100% afka unba u duban waxaa lagu leeyahay neefta bas looma kala qaadayo waa taabashada way ku jirtaa marka maxaa kula dardaarmaysa asxaabteyda ku xiran janalkeeda subscribe like waxa barta ininka maaragta xaqiina laga rabaa teed kale caafimaadkeena aan ku dadaalno dowladeena hogaansano wixii caafimaad ku jiro ee dowladan caafimaad ku jirta dowladan caafimaad ku jira anaga dan ugu jirta sababtoo wixii wax isku wada xiran waay haddii anaga sharci aajigno dowladan ay go-aankeeda taagnaaysa laakiin anaga haddaa go-aanka haddaa qaadano dowladdu waxay fiirsadaan hogaankii fiirinaan saa micna qaabka u dhaqmayno marka dambe waxa waa cadaadisku lagu wararka qaada kulid soo maleena dhaqan dar lagu arkay leeyahay maleena cadaadisku loo saaray dabcan because xaafadda isli waa xaafadda kaliya ee ugu jaamka badan siba area loo badinaa dhanka jaamka marka maraysidna ma aragtay dadka waxa u malaysaa saxmad inay u socdaan in meelaha qudaarta u taagan yihiin dukaamada marka asxaabtay wax kale in ma dhihileen waa idin dardaarmeena fadlan iska ilaali cudurka cudur dilaaya ma ahan gaal kaliya inuu ku dhacay gaal iyo islaamba waa loo wada sameeyaa musiibo markay imaato kulli way saamaynaysaa marka fadlan markaa suuqyada ama isticmaal magaalada soo martid gurigaaga tagtid faraa iska dhaq saabuun biyo xoogaa soconaa 30 second ama 30 daqiiqo 30 second isticmaal marka maxamed maadaama aad channel ku cusub maxaa asxaabta ugu soo gabagabeeyay maadaama waqtiga horta Eid Mubarak waxaan idin la khayri wax kale nagu soo dhaweynina like share inkana khayr idin rajeyna insha Allah fadlan subscribe ka noo saar share dheh commentiga hoos noogu reeb wixii aragtidaada fikradaada waana la wadaagi kartaa laagtana saar waxa muhiimkana waa subscribe-ka iyo share dheh si asxaabtaada adduunka daafaheeda kala duwan jooga ay u daawadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu